qayb ka mid ah dumarku kaliya ma raadiyaan ninka hantida leh kaasoo ku nool nolol barwaaqo laakiin waxa ay raadiyaan nin siinayo ama se u muujinayo ixtiraam una samaynayo waxa uu awooda siduu u qanciyo ama se u saacido haba yaraatee hantidiisa. qisadan waxa ay tusaale nool u tahay inuusan jaceylka xuduud lahayn. intaana barogaraamka u galigelin janalka loo laagalaysuu dad badan u gaaro subscribe-kana hanaga ilaawin dhanka youtube-ka dhanka facebook-gana follow noo dheh nana soo raac Somali Media Action. Valoria waxa ay ahayd midna nool labadeeda waalid kuwaasoo hodan ka ah dhanka hantida. waxa ayna ahayd gabadha kale ee caruur ahaan ay u qabeen. waxay wada deganaayeen magaalada Mooska ee Ruushka. waxa ay haysatay wax waliba oo qof dhalinyaro uusan ku riyoonin. labadeeda waalid ayaa u iibiyay guri aad u qurux badan meel u dhow jaamacadda Harvard taasoo ka dhiganaysay kulliyadda dhaqaalaha. sidoo kale waxa ay ka saacideen in ay shaqo ka hesho meel bangi ah. waxay waalidiinteeda ahaayeen kuwa magac iyo mansab ku leh magaalada. sidoo kale Valoria ayaa loo iibiyay baabuur aad u qaalisan. waxa ay ahayd mid ku nool nolol qof da'yar uusan helin. waxa ay waqti la qaadan jirtay saaxiibadeeda laakiin intaaba maysan ka dhigin Valoria mid faraxsan. waxa ay ahayd mid la daaladhacaysay mushkilo aad u weyn. Valoria ma lahayn saaxiib dhab ah. qof waliba la asxaabteeda ka mid ah waxa uu la saaxiibayay inay hantideeda wax ay ka helaan. dhammaan xiriirada ayay u jartay. waxa ayna noqotay mid kaligeed gooni u nool. Valoria ayaa u safartay gobolada mid ka mid ah arrimo shaqo awgeeda. waxa ay degtay hotel aad u qurux badan kaasoo leh beer. Valoria waxa ay ahayd mid galabtii bannaanka u soo baxdo. waxa ay imaan jirtay meel beer ah sida halkaa hawo macaan ugu qaadato. xilli ay dhex fadhisay beerta kursi yaalay si lama filaan ah waxaa ku soo muuqday wiil wejiga soo qarsaday. sidoo kale dharkiisana aad u jeexjeexan yahay. sidoo kale udgoonkiisana uu yahay mid aan la mahdinin. waa uu dhoolla caddeeyay. sidoo kale waa uu salaamay xaalkeeda ayuu weydiiyey iyo magaceeda. hase ahaatee Valoria wax jawaab ah maysan bixin waayo waa ay ka shakisay. waxa ayna u qaadatay inuu fal aad u xun u damacsan yahay. hase ahaatee fikir dheer kadib Valoria waxa ay go'aansatay inay la hadasho weliba aad ay isku jilciso. salaantii ayay ka ridisay. magaciisa iyo xaalkiisa ayay weydiisay. waxa uu jawaabay waxaa la idhahaa Nikita. sidoo kale waxa uu sheegay inuu aad u daalan yahay. had iyo jeer suuqa ayaan wareegaa weliba anigoo la ikaraahsanayo. Valoria ayaa xaqiiqsatay sheeko dheer kadib wiilkan inuu yahay wiil aad u aqli badan. sidoo kale dadka aad u ixtiraama inkastoo uusan haysan hooy uu ku hoydo. jaceylku ma lahan xuduud. sidoo kale indho ma lahan. waa sidee khubarada jaceylka faaqida ay sheegeen. mararka qaar waxaa dhici karta qof aadan ka filanaynin inaad jeclaato. waxaa sii socotay sheekadii dhexmaraysay wiilkii darbijiiska ah iyo Valoria. runtii sheekadooda aad ayay u dheeraatay muddo ku dhowaad 1 saac iyo bar beerta ayay fadhiyeen. ugu dambeyntii Valoria ayaa u soo ruqaansatay dhanka iyo hoteelkii ay deganeed. wiilkii Nikita ayaa ka dalbaday Valoria in ay mar kale kulmaan. maysan u jawaabeen waxaan ka ahayn qosol. ugu dambeyn waa ay laabatay. maalintii xigtay waaga markuu baryay Valoria hurdada ay ka kacday. waxa ugu horreeyay ay samaysay ayaa ahaa inay daaqadda furto. indhaheeda waxa ay qabteen Nikita oo beertii dhex fadhiya. runtii arrintaa aad ayay Valoria u soo jiidatay. waxa ay bilowday dhanka iyo suuliga inay aado oo soo meeyrato. waxa ay soo xiratay dhar aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. waxayna bilowday dhanka iyo Nikita inay xaggiisa soo aado iyo beertii. ismarxabeyn iyo soo dhaweyn kadib Nikita ayaa saaxiibtiisa cusub ka dalbaday inay maanta u raacdo meel meeshan ka duwan taasoo jawi macaan leh. waxa uu bilaabay Nikita halkaa inuu ugu sheekeeyo macaankeeda iyo jawigeeda iyo dabcigeeda. hase ahaatee Valoria qosol iyo fiirmo waxaan ahayn kama soo harin.
aad ayay u fiirinaysay weliba si kalgacayl ku dheehan. Nakiita inkastoo uu yahay wiil darbijiif ah hase ahaatee dhanka hadalka aad ayuu ugu wanaagsan yahay. Markay soo dhowaatay bixitaankeedii dhankaa iyo mooska ay u laabanaysay waxay u qortay telefoonkeeda waxayna u sheegtay inuu kala soo qayb galay dhalashadeeda taasoo ka dhiman tahay 2 bilood. Nakiita arrintaa marna waa u ka naxay marna waa u ku farxay. waxaa la gaaray maalintii ballanta taasoo ahayd dhalashadii Flooria ayaa soo wacday telefoonka Nakiita si lama filaan ah. hase ahaatee Nakiita ayaa ka qabtay waxa ay u sheegtay inay tahay maalintii dhalashadeeda. waxa uu ku yidhi waan xasuusanahay oo weliba maana iloobin. sidoo kale waxa uu sheegay inuu rajaynayo qofka ugu horreeya oo u hambalyeeyo inuu noqdo, hase ahaatee nasiib xumo inuusan maanta imaan karin. hadalkaa markuu dhegteeda ku dhacay runtii aad ayay u niyad jabtay. waa uu dareemay inay hadalkaa aad ugu xumaatay. waxa uuna ka dalbaday inay daaqadda furto hoosna eegto. waa ay samaysay. waxay indhaheeda qabteen Nakiita oo gacanta haatinaya. aad ayay u faraxday. waxa ay bilowday inay hoos u soo degto. marxabeyn iyo soo dhoweyn kadib waxa ay ka dalbatay inuu gudaha u soo galo. waxa ay bilowday inay ugu mahadceliso imaanshihiisa. ugu dambeyn Nakiita ayaa jeebkiisa ka soo bixiyay faraanti aad u qurux badan. waxa uu ka dalbaday in uu guursado. waxa ay ku noqotay hadalkaa fajac iyo la yaab Flooria. Nakiita ayaa sheegay faraantigan inuu ku soo iibiyey xoogaa yar uu suuqa ka helay. sidoo kale waxa uu xusay inuusan ahayn waxa ay dadka ku tilmaamaan. waxaa kaloo uu sheegay inay dan iyo duruuf arrintaa u geysay. waxaan ahaan jiray qof xoogaa iska ladan magacna ku leh magaalada, hase ahaatee wixii mansab iyo magacaan lahay waxa uu yidhi waa la iga dhacay. oo sidoo kale waxa uu xusay inuusan adduunyadan ehel iyo qaraabo u joogin. maalintan adig ku arkay waxay ii ahayd maalin aad u wanaagsan. sidoo kale waxaan dareemay inaan weli adduunyada rajo ku leeyahay. aad ayaan u farxay. waxaana rajaynayaa wax weliba dartaa inaan u bedelo noloshaan hadda aan ku jiro inaan dartaa u bedelo ayaan rajaynaa ayuu Nakiita yidhi. aad ayay u fiirisay Flooria. runtii mar kale ayay fiirisay. waxa ay ku tiri diyaar ayaan u ahay guurkaada. aad ayuu u farxay Nakiita. runtii halkaa waxaa ka dhacday mashxarad inaba aan caadi ahayn. waxay sidoo kale xustay Flooria maalintii beerta ay ku sheekaysteen inuu soo jiidasho xoog leh ku sameeyey kalgacaylna ay u qaaday. sidoo kale Nakiita ma oga inay Flooria ka soo jeedo qoys ladan. sidoo kalena ay tahay hooyadeed aabaheed mid keligeed ay ka dhaleen aysan carruur kale la dhalanin. waxaa halkaa loogu sameeyey aroos iyo mashxarad aad u weyn taasoo ka soo qayb galeen dad dunida caanka ah. mararka qaar nasiibku waa uu ku hiliyaa marna waa kaa hiliyaa. halka aad warbixinta kala socotid waa Somali Media Action qaybteeda alcaalam. subscribe-taada ilaa taado daawad waxay inoo tahay dhiirigelin aad u weyn. mahadsanidin.